Somalian Marbata Mataraiden Somalian Marbata la Khumaiden Somalian Marbata Abkhasarten Somalian Marbata Mataraiden Somalian Wadistogaten iskutoba segten Wadistogaten iskutoba segten Tarikh da moye tagtayan la faragelin Choktada utogahay timatada kutalagala Tarikh da moye tagtayan la faragelin Choktada utogahay بسم الله الرحمن الرحيم كل وعن وناكسن دغيستيال كسو دواده برنامج gaar ah ugu magac darnay mustaqbalka Soomaali توفيق دورات خويا لا فرقلين ان طلعنا بوقتو تكسمدو يا قلالان توفيق دورات خويا لا فرقلين ان طلعنا بوقتو اسمادو يا قلالان اسكو ترسدو تشدو توحيد اسكدو حميه تجا الله توبه وذا دخطوبه الله توبه وذا دخطوبه barnaamijkan gaarka dhageystayaal waa barnaamij aan ku ururinayno ra'yiga dhageystayaasha Soomaaliyeed ee ku nool dalka gudihiisa waxaana barnaamijkan uu yahay mid aan kaga hadlayno doorashada 2016 ka dhacaysa wadanka Soomaaliya cidda ay doonayaan shacabka Soomaaliyeed inay ku soo baxdo waxaan barnaamijkan u aragnay afar mas'uul oo aan isleenahay waa kuwa ugu cadcad doorashada 2016 ka dhacaysa wadanka Soomaaliya waxa ugu horeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda madaxweyne ka ah dawladda federaalka Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Shamarke oo isna ra'iisul wasaare ka isla dawladdan waxa kamid ah ragga kale Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo madaxweyne ka soo noqday dawladdii ku meel gaarka ahayd iyo sidoo kale Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo isna ra'iisul wasaare ka soo noqday mid kamid ah dawladihii ku meel gaarka ahaa haddaba afartan shacabka Soomaaliyeed ayay noqonayaan mid ay u codeeyaan marka hore waxa ka horeysa doorasho noocee baa doonaysa in dalka ay ka dhacdo yaad u codeynaysa afartan musharax maxaad ku dooratay waa saddexda su'aal ee barnaamijka mawduuciisa ah haddii marka la dhageystayaasha ugu celiyo waxay noqonaysaa doorasho noocee baa doonaysa in dalka ay ka dhacdo sanadka 2016 yaad codkaaga siin lahayd afartan musharax ee kala ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo Xasan Sheekh Maxamuud iyo Umar Cabdirashiid maxaad ku dooratay shakhsigaad isleedahay oo u qalmaa barnaamijkan dhageystayaashu way ka qayb qaadan karaan kuwa jooga gobolada iyo kuwa jooga gudaha magaalada Muqdisho telefoonka ah 86 ay nagala soo xiriiri karaan iyo sidoo kale 86 ama mobilka ah eber 65 23 18 dhageystayaasha kale fikirkooda way ka soo dhiiban karaan oo aan awoodin telefoonka ay soo galaan iyagoo fariin qoraaleed noogu soo diri kara lambarka gaaban ee ah 424 waxa ay ku soo bilaabayaan fariintooda magacooda halka ay joogaan iyo cidda ay codeynayaan barnaamijkan anigu Cabdiqaadir Cabdullaahi Maxamed idin soo saaray kala socodsiinaya mar kale iyo barnaamijka gaarka aan ugu magac darnay mustaqbalka Soomaaliya midni madita sayisen Somalian waystu matiden tan kala dhaqaaqden waystu matiden tan kala fogaten توفيق دورات خويا لا فرقلين ان طلعنا بوقتو تكسمدو يا قلالان توفيق دورات خويا لا فرقلين ان طلعنا بوقتو تكسمدو يا قلالان markale maalin wanaagsan ayaan hawadeeda ka leenahay waa maalin axada taariikhdan ay ku beegantahay 13 bisha 12aad sanadka 2015 dhageystayaal intaan u gudagelin barnaamijka maanta magaalada Muqdisho waxa ka furmaya shirka wada tashiga qaran ka oo lagu go'aaminayo qaabka ay doorashada uga dhacayso wadanka Soomaaliya mid la isku raaco maanta waxa madaxda Soomaaliya uu shir uga furmaya magaalada Muqdisho shirka maanta furmaya ayaa qayb ka ah shir looga hadlay higsiga cusub 2016 iyadoo madaxda Soomaalidu ay maalmahan
mashquulsanaayeen shirarkan gaargaarka islamarkaana ay ku sugnaayeen muqdisho madaxda soomaalida ayaa aad u kala fikra duwan hanaanka loo gelayo doorashada 2016 madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa la soo sheegay inay qabaan in doorashada lagu saleeyo nidaamka deegaanka ah halka maamulada koonfur galbeed iyo galmudug ay qabaan in wax lagu qaybsado hanaanka 4.5 oo dawladda hadda jirta ay ku dhisan tahay hadda waxaa si toos ah qadka ugu jira Professor Ahmed Hassan Abdurrahman marka hore ku soo dhawow barnaamijkan gaarka aan uga hadlayno mustaqbalka Soomaaliya faahfaahin bal naga sidee kula tahay shirkan maanta ka furmaya ee lagu go'aaminay natiijada qaabka u dhacaysa doorashada 2016 bismillaahi rahmaani السلام على دمان الشيء بعد كل يوم في وحياة في الصعوبة الصومالية. قال وحشركة السعودية مقدش ولا واحد لا ورشة لا كل شيء كمان يكافئ إنه قندونته. من في أهلها في وأهل الأمة الصومالية من اهتمام إنه يكسر رجاله. وأيدينا يعني إنا ما أردت كأركان وحكسوا به كرف مشاكل. iyaga oo ay jirto madaxda qaranka iyo kuwa goboleedka inay isku jiidayaan qaabkay noqon lahayd مثلا Jubbaland iyo Puntland waxay qabaan in deegaan degmo lagu rafalo oo baarlamaanku ay soo xulaan degmooyinka ka imanaya ama goboleedka cidda mas'uulka iyaga ay soo xulaan xildhibaanadaasi ay noqdaan mustaqbalka kuwa iyaga ka amaqaato oo meelihii ay u jeediyaan dhanka kale koox kale ayaa waxay wadataa maamul goboleedyada kamid ah laakiin aanu aragna dadka qaar ay u arkaan in dabada laga riixayo qolyo kale ay wataan siyaasiyiin ka sarreysa in 4.5 waxa lagu soo dhiso oo qabaa'ilkii dib loogu laabto iyo qaabkii carta lagu soo onkay runtii labada qayboodba waxay leeyihiin dhibaatooyin iyo dib u dhac ay ku yeelanayaan runtii ummadda Soomaaliyeed qaab ka duwan ayaa fiicnaan lahaa marka aan waxyo ka tilmaamo 4.5 xilligii la asaasiyay carto markaas runtii marxalad xasaasi ayaa waddanka ka jirtay hogaamiye kooxeedyada ayaa awood badan lahaa meelaha qaarna dhiig sokay ayaa la daawanayay sidaa darteed waxaa xilligaasi xal loo arkay in wax lagu xaliyo 4.5 si hogaamiye kooxeedyada iyo qabaa'ilada isdagaalaya loo qanciyo oo arrinkaas halkaas ay uga soo baxday wax la isku raacsan yahay isla markaasi dad badan oo ahaa dadka laga tiray ama la heebsooco ayaa runtii helin xuquuqdii ay lahaayeen xataa waxyaabaha ognahay oo la qoray ragooda aqoonyahanno badan ay qoreen oo mustaqbalka la soo bandhigi doono waxaa kamid ahaa rag dad meesha tagay oo dadkii laga tiray badan ahaa yaa markii saamigii la qaybsanayay baarlamaankii qaybahoodii dadkii ay isku deegaanka ahaayeen salaadiinta isku deegaanka yimaadeen ku yidhaahdeen xaq uma leeyihiin inaad wax qaadataan annaga ayaa idin matalayna annaga ayaa nabadnabad iyo qaaraantiina idin ilaalina saadarteen xaq uma leeyihiin inaad baarlamaanka wax ka heshaano meeshii wax lagu soo jiiday maxkamad loo dacwoonayana ma jirin xilligaasi markii dib loo soo laabtayna nidaamyadii ay la deganayeen dadkii intay shaqeen ayaa waxay go-aan ku gaareen inay ummadaasi iyaga ka tirsan aysan wax xuquuqa ku leen deegaankaasi haddana maamul goboleedyada qaar ayay ka jirta arrintaasi oo deegaamo la wada deganaa ayaa beelo khaas intay isa siideen ay go-aanseen cid la degto inaysan jirin ina la wadaagin halkaasi waxaa maaragtay ka dhashay xuquuqiyo sii weynaado heebsooc iyo sii bato iyo xaqiraada ay ummadda isku haysay oo sii socoto weli 4.5 ibkaasoo keena walaa iyo maanta taagan waxaa laga dhaxlay xubno baarlamaan oo aan tayo badan lahayn oo maaragtay dhuuri qaatayaal ah oo hadba meeshii maslaxadooda ku jirta raacayo oo ummadda Soomaaliyeed aan u danaynaynin oo danahooda keliya fiirsanayo oo hadaf siyaasadeed lahayn oo wax la hiigsanayo laga miro dhalinayo aan lahayn keliya bulshii ku shaqaysta ayaa laga dhaxlay taasi oo sababteed markii hore lasoo asaasiyeyba nidaam daahfuran iyo hufnaan laguma keenin musuqmaasuq ay ku yimaadeen iyo odayga ay u siiyey dadka sida aqoon la ummadda matali karana ma ahan ilaahay ummadda hanti u wareegsiiyey laakiin caqli iyo cilmi muusa wada siiyey dad gaar ayaa la siiyey ilaahay ku fadilay dadkii iyaga ahaa ma ahan dadka maanta baarlamaanka ku jiro oo ummadda matalaya oo magacooda ku hadlaya qaybta kale ee degmooyinka soo qoray waa mahadsan tahay
axmed xasan cabdiraxmaan sidoo kale dhegeystayaal stuudiyaha waxaa igula sugan siyaasiga salaad cali jeele oo gudoomiye ka xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda isna waxa uu soo jeedinayaa talooyin dhowr ah oo ku aadan qaabka doorashada u dhaceyso. salaad ku soo dhawo barnaamijka. bismillaahi raxmaani raxiim. aad iyo aad waxaan usoo dhaweynayaa idaacada kulmiye oo shacbiga soomaaliyeed aad iyo aad ugu adeegta. maanta waxaan saxaafadda ugu yeernay shirkan jaraa-id in aan ku dhammaystirno fikraddii aan soo jeedinay ee 2016 habka doorashooyinka ka hadlaysay oo aan hore ummadda soomaaliyeed ugu soo bandhignay iyo fikradihii ka dhashay. marka arinta waa shirkaas jaraa-iday ku saabsantaha waa dhammaystirkii fikradeenna. ujeeddo waxaan rabaa inaan bilaabo warqaddii ujeeddo dhammaystirka fikraddii horey usoo bandhigiyey xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda 19 Oktoobar 2005 ee ku saabsanay doorashada Soomaaliya ee 2016. waad ku mahadsantihiin dadaalka dheeraadka ah iyo gacanta aad ka geysanaysiin nidaamka dimuqraadiyeynta Soomaaliya. waxaa sharaf weyn inoo ah inaan idinla wadaagno fikirkeenna ku aadan doorashada 2016 ee Soomaaliya ka dhacaysa. hordhac shirar wadatashi heer gobol ee ka dhacaya qaar ka mid ah magaalooyinka Soomaaliya ayaa waxaa looga dooday 4 nooc oo loo qaban karo doorasho, kuwaas oo horey loogu soo bandhigay shirka wadatashiga qaran loogu magac daray ee lagu qabtay Muqdisho. 4 nooc waxa ay kala yihiin sidan: 1 qaab qabiil 4.5 oo hadda lagu dhaqmo oo marxaladda hadda lagu jira ay baarlamaanku ku joogi. B heer gobol. C heer degmo. 4 nidaamka axsaabta badan. ka hor inta aanan ka jawaabin su'aalahan ayna weydiinayaan muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo beesha caalamka, waxaa jirta dhowr arrimood oo lagama maarmaan ah la'aantood inaysan waxba qabsoomi karin. 1 haddaba muran kama taagna in kuraastaas baarlamaanka federaalka ah ee 2016 samaysmaya ay noqonayaan 275 kursi. su-aasha hadda la isweydiinayo waxay tahay sidee dadka Soomaaliyeed loogu qoondayn karaa kuraastaas qaab isu dheeli tiran. 2 yaa ka mas'uul ah qabanqaabada doorashada soo socota si cadaalad darro aysan u dhicin, maadaama mas'uuliyiinta hadda gacanta ku haysa talada dalka ay xukunka ay rabaan inay maroorsadaan. 3 yaa xaq u yeelanaya inuu codeeyo. 4 yaa soo xulaya cidda u tartamaysa kuraasta baarlamaanka habkuusa ku imaanaya. jawaabaha su'aalahan: jawaabta koobaad, 275 kuraas ee baarlamaanka ka kooban yahay waxaa loo qaybinayaa gobolada dalka. Soomaaliya waxay ka kooban tahay 18 gobol. qaybintaasi waxaa lagu salaynayaa tirakoobkii qaramada midoobay ay ka samaysay dhammaan gobolada dalka sanadkii 2014. taasi macnaheedu waa in gobol kasta uu helo tirada uga soo aadaysa 275 kuraas ee baarlamaanka ka kooban yahay, iyagoo loo eegayo gobol kasta tirada dadka iyo tirada dadka ee qiyaas ahaan ku nool. marka loo fiiriyo tirakoobkii UN-ka ee ugu dambeeyey percentage ahaan, gobol kasta wixii ku soo aada ayaa waxaa loo sii qaybinayaa degmooyinka uu ka kooban yahay gobolkaas. 2 degmo kasta waxaa laga soo dooranayaa gole ka kooban 21 xubnood oo laga soo
dooranayo qaybaha kala duwan ku nool deegaankaas. golahaas ayaa waxa uu soo dooranayaa xubnaha xildhibaanada degmada u matalaya baarlamaanka qaranka. waad mahadsan tahay salaad. markan dhageystayaal barnaamijkeena ayaan u gudagalaynaa oo mustaqbalka Soomaaliya aan kaga hadlayno. dhageystayaasha wixii xilligan ka dambeeya qadadka telefoonada ay u furan yihiin oo ay soo gali karaan. waxaan noo soo socda dhageystayaal sidoo kale to barnaamijka intaan ku guda jirno qaar ka mid ah shacabka Muqdisho aragtidooda ka dhiibanaya iyana doorashadan ay doonayaan qaabka ay u dhaceyso iyo cidda ay isleeyihiin way ku guuleysan kartaa. dhageystaha ugu horeeya ee qadka telefoon ku jira aan siiyo. halo salaamu calaykum. Asalaam. walaal magacii deegaanka. aniga waxaan yiraahdaa Cabdirashiid Xuseen Macalin Gaali. ay Cabdirashiid. bismillah bi'idhnillah wa qudratihi wa 'azamatihi wa 'awnihi wa bihi nasta'ir 'ala umuri dunya wa din amma ba'du inna al-'adla lillahi wal 'azamatu lillahi ilaahi wa la taqabbatu ilahi baaskala cadaaladana ilahi baaskala wa samaawi sida runta samada ka tii haddaan ra'yigayga cabiro annagu haddaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed dalka Soomaaliya amnigiisa gacanta ku hayn jiray doorashada dalka ka dhacayso maadaama ay tiri dawladda fadhiidka ee hadda dalka ka jirta hal cod iyo hal ruux mar dhici karto 2016 ay dhaheen. annagu waxaan aad u soo dhaweynaynaa doorashada bulshada Soomaaliyeed in loo bandhigo iyadu yacnaha uqaladooda iyo salaadiintooda iyo waxgaradkooda ay dadka matalaya iyagu doortaan baan horta ra'yi aan qabnaa. taas markaan ka gudbo 4 nin oo diisoo bandhigtay tiri midkee yacnaha 4 nin la qaadan karaa. Soomaalidu waxay tiraa shicir baa wuxuu yidhahaa isku duubnida hore goortan shamsadu daahirtay dunidu nuurtaa isku duubnida hore waa gamaan daabadoo idila har yeeshee dameerka iyo farduhu waa daa kala weyn. maxamed cabdullaahi faramaajo dalka markii uu imanayay oo ra'iisul wasaaraha laga dhigay annagu haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan xoogga dalka Soomaaliyeed dowladnimo waa ka samaysay 6 bilood oo shaqaynayay dalka meeshii uu ka qaaday iyo meeshii uu geeyay nin kasta oo Soomaaliya og xag abni xag dhaqaale sidii qaranka laga u burburay isagoo hal askari uusan mushaar qaadanin ayagoo askarkii Soomaaliya gobol kasta oo joogtay mushaarkeedii ku siiyay kuwii sababkii ku dhintayna mushaarkoodii baa la siiyay. amnigina waa sugmay dhaqaalihii dalkuna waa soo kacay bulshadii Soomaaliyana waa israacday. marka waxaan leenahay dayax yacnaha xidigaha lama eko dalka Soomaaliya haddii nolol laga rabo shacabka Soomaaliya oo dalkii Soomaaliya la oran jiray inuu dib isugu taago caligiisa la rabo maxamed cabdullaahi faramaajo calamka waxaan ka codsanaynaa ninkaas madaxweyne dalka ka noqon kara Soomaaliya rajadeeda soo celiyay inuu ninkaas ama codka anaga siino ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtana waa ogtahay waa ka baxaanaya. maxaad ku dooratay? waxaan ku doortay 3 qodob baan ku doortay maxamed cabdullaahi faramaajo. qabyaalad lahayd oo Soomaaliya waxa dilay oo dileeyay waa qabyaalad baa dadkii ciidankii ama dalkii loo qaybiyay qoys walba meel baa lagu ooday federaalin baa tiin baa la yiri dadkii shacabkii qoryal la isugu dhigay walba gooni baa loo goostay. waa qodob qabyaaladii kooradi waa jiray oo waa idinla iyo meesha boorama iyo Hargeysa iyo Laascaano iyo Muqdisho shanta qaarada adduunka ka baxay Soomaaliya oo dhan buu kasbaday rekoorka uu jabiyay. waa qodobka labaad ee ku doortay waxa weeye ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed dalaan ciidan line ma dhismo baabay iyo nooyay oo dhisay mushaarkoodiina siiyay walakin magaalada Muqdisho wixii ka jiray. qodobka saddexaad amnigii dalka intii yareeyay uu joogay waa kii isla markiiba farqaha lagu dhagay وعدوي Soomaaliya ay farqaha ku dhageen uu sugay magaalada Muqdisho gabar waliba iyadoo dahabkeeda waxsan bay magaalada dhexmareysay. qodobka afraad wadanka iyaga gumaysi ma weysanayn maalinkii Faramaajo laga takhalusay Kenya iyo Ethiopia dalka ay ku soo duubay dalka hadda mustaqbalka uu ku jira waa ogtahay badii Soomaaliya Kenya sheegatay shacabkii Soomaaliya waa iska xasuuqaya waa la socotaa ciidamada Kenya waxay ka sameynayaan jubbooyinka gedo jubbada hoose xoolihiisa dadkii waa xasuuqaya adigu wadaana waa la amal wadareedada hadda ka qolan dhulka nagi waa la dhisanay jilaar bay ka dhisatay Kenya oo hadda ay goosanayso magaalada Beled Xaawo kala bartankeedu maraya jilaarka
Ethiopia waa la socotaa wadankii waa qabsatay waxa u dhiman inta ay Kenya hayso afarta qodob mala zanaawi baa u yeeray ninka la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo adisa way ma uu hadda daliga la xafiis baa la hayay uu ku yiri marka waxaan codsanaynaa shacabka Soomaaliya way ogyihiin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu inta afarta qodob baa ku dooranaya Soomaalina way la qabtaa adigu waxaad ka mid tahay saraakiisha ciidamada dawladda miya saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed baana ee Kenya ay ka soo saartay magaalada Shabaab ee hore fikri iyo taangiira ay marisay hadda Kismaayo adiga la hadlaysaa magaalada Kismaayo bureedkeedan jooga 2 sano iyo bar halkaasaan jooga waayo waad mahadsantahay dhegeystaha kale halo assalaamu calaykum alaykum magacii deegaanka joogto walaal niyo waxaan joogaa magaalada Baardheere Axmed Ibrahim Guleed Daliina waan gartay Axmed barnaamijku waad la socotay barnaamijku waad la socotaa waa la socdaa waayahay doorasho nooceed aad doonaysaa in dalka ay ka dhacdo sanadka 2016 doorashada qaabkaan u doonayna inay dalka ka dhacda waxaan rabnaa doorasho aan musuqmaasuq lahayn oo kuturasho lahayn oo gumaysi lahayn oo dadka shacabka Soomaaliyeed ay inkon oo qofku u soo doorta oo fikirkooda la daayo oo la tixgeliyo inay ka dhacdaan jecelahay 2016 magar waayahay afartan musharax ee aan soo qaadanay waxaan isleeyahay waa afarta shakhsi ee ku soo bixi kara doorashada xasan sheekh maxamuud hadda madaxweynaha ka ah dawladda federaalka sheekh Shariif Sheekh Axmed Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo Cumar Cabdirashiid Cali Shamarkoosna ra'iisul wasaaraha yaa adiga codkaaga siin leed codkayga waxaan siinayaa laxdamayaala Soomaalida waxay tiraa gudaxadeed wax kuntiga la geliyo way qofkii dalka ee dadka ee ummadda diintooda wax u tarhaya xag amni ha ahaata xag gumaysi ha ahaata xag ulxelin ha ahaata afartan nin waa kala xadiin nin walba waxa la yiri wixii ninkii loo qaray lama kala wada ninna hadda xilka ayaa ninna ragga kalena waa raggii xilalka soo qabtay kuma sii dheeraanaya dhulka Soomaaliya oo badaha leh oo dagaanyada leh oo la jaray oo burburkii hadda u dambeeyay Maxamed Siyaad kadib la bixiyay nimankii isu dara istaago bixiyay baa saddex nin bay ka mid yihiin oo kala Soomaali waxaan leeyahay qabyaalada iska dhaafta dadkana yayna tartansiinin qofkii wax u galahayo biri ka maalin wax ka soo saari kara ama dhulkooda u celin kara ama awoodtooda u dhisi kara ama wiilashooda isu keeni kara Soomaali qofka noocaas ah doorata waxaan leeyahay waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ninkii doona wax kala ha qaatay qabyaalada loo qaata wax kasta loo qaata waxaan leenahay Soomaaliya isaba qabta qof wax idin karahayo doorta waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sababtaad ku dooranaysa maxay tahay sababtaan ku dooranayna waxa weeye xilligii yaraa oo ka noqday magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha qorshihii uu sameeyay oo natusay oo dadweynihii Soomaaliyeed weliba aniga dadkii xamar joogay ka mid maahan gobollada fog baan joogay ama ay xamar sheegayeen ama ay gobollada Soomaaliya sheegayeen baan ku dooranaynaa الأول إذا ما يحوج دلك الصوماليات بيسوي ياري هو بسي إذا ما يعمل والله عطي يتكحل الجري أو كوا الصوماليات إذا من جيران كوا عمل سون أي العكس الصومالي اللي هو بحنا يتكحل الجيران ويتفضل في يطلق انتير وإحنا يصلح رأيه وقيدة كوهم يمثل إذا كحوج دلك الصوماليات دل من لما يكون حلوقا سلا أهلي أواد مرق الصوماليات بسوء مركو صائف بحينا wixii weeraray oo dilay oo baabiyay oo ka saaray xilka wuxuu ahaa gumaysiga hadda haysta oo ciidamada Afrikaanka oo sinka durduran oo Amisom la leeyahay ka mid yihiin baa dalka ka saaray walaalkii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii laga qaadahay kursigiisa ra'iisul wasaaraha waxa ku qornay kursigiisa 250 oo AK-47 qori walba asaga ku soo jeedo askari Kenyan iyo Uganda iyo Burundi iyo Ethiopia inta lagu soo qoray ma garan waaye marka arintaas ay ugu dooranaya xornimo Soomaaliyeed hadii ay Soomaaliya rabta ama ay dhulkeeda rabta inay soo ceshata ninkaas doorata dadkan kalena waa dadkii Soomaaliya gatay oo sansaarada ahaa arintaas qaba waaye waa maasan tahay waayahay barnaamijkan ku guda jirnaa dhageystayaal dhageystaha kale qadka ku jiraan si halo salaamu calaykum
عليكم السلام ورحمة. walaal magac iyo deegaanka nagala soo hadlayso aniga duwala gobolka duwala degmada waxaan kala taagay way barnaamijku aad dhageysatay fiican waayahay doorasho nooceed aad doonaysaa in dalka ay ka dhacdo sanadka 2016 doorashada aan doonayo markaan ku sheega waxaan doonayaa aniga midda dalka horta ninka wax u taray inaan doortaan jeclahay iyo inta midda kale midkii oo hadda doorashadii dalka ka dhacday aniga aan rabo ay tahay maadaama min qof codkiisa la qaadi karay ani aan rabo ay tahay nin walbaba ninka waa taga rabaa ama sidii wadanka wax u qaban inuu doorto qaabka inay u dhacda aan rabana waxay tahay in haddii aniga codka naga aan dhiibano cidda markaas aan ku kalsoonahay ama wax mataraysan aan u dhiibano waxaan fahmay oo u fahmay hadalkaaga inaad ku qanacsantihiin in doorashada qof iyo cod ay dhacdo oo idinku aad dhiibataan qofka aad dooranaysaan waayahay marka afartan musharax keebaad is leedahay waa ku guuleysan karaa ama codkaaga aad siinaysaa haddii taa ay dhacdo walaalani markaan kuwa codkayga ku sheega ama haddaad dhiibisay waa arrin wanaagsan horta habeenkii maalin wax laisku qaha maaha marka nimanka musharaxiinta hadda noo sheegaysa afarta qof habeenkii maalin kariyaani waxaan dooranahay cabdullaahi maxamed farmaajo ay codkaaga siin lahayd aada weyn sababtu maxaa ku micnaynaysaa waa ku macnaynayaa 6 bilood oo dalka uu asaga hoggaanka u qabtay waxqabadkiisa ku cusaya laakiin solis ma dhihi karo waxaa jira madax kaleeto oo tartanka kula jirto oo iyaguna waxqabad muuqda la yimid maya waan gartoo maasantay waayahay barnaamijkan ku guda jirnaa dhegeystayaashu aad ay u fara badan yihiin qaarkood fariimo ayay inoo soo qorayaan jiro halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعبد الله أحمد وقالكاية كان له يا أب عبد الله قالكاية سيل لقويا قالكاية هذه يا أبي وفي عنتها ما الموضوع عن دريبنا نرضي مرورة waayahay anagoo kaaga mahad celinayna xiriirka aad nala soo samaysay waqtiga aad na siisay barnaamijkan haddii aad la socotay doorasho nooceed aad doonaysaa in Soomaaliya ka dhacdo sanadka 2016 walaalow doorashada aan jeclahay inay ka dhacdo wadanka qof iyo cod baan aniga jeclaan lahaa laakiin dowladda muqdisho ka jira waxay tiri ma dhici karto cod iyo qofka inuu dhiigto marka aniga hadda musharaxiintaas noo soo bandhigtay midkii dalka iyo dadka waxa ugu yaalla baan aragtidayda ah baan kolley baan dooranaya aniga yaa dooranaysaa qofkii dalka iyo dadka waxa ugu yaalay waxqabadkiisa aan aragnay ayaan dooran lahaa hadda afartaas nin ee musharaxyada oo hadda ma iska saaran afartuba shaq ay ka soo qabteen wadanka waa sax afartan waxaan usoo qaadanay keliya tusaale dad kale baa soo bixi kara laakiin waxaan isleenahay waa afarta shaksi ee ugu cadcad ee xoogaa siyaasadda ka soo bixi kara walaalow marka soomaalida murtideeda waxaa ka mid ah nacab iyo nin raga markay madax noqdaan ayaa la kala gartaa hay afartan nin ayagoo madax soomaaliyeeda nin kastaba ummadda soomaaliyeed qalbigeeda waxa uu ka kasbadaa ayuu ka helayaa baan qabaa aniga kolley qalbigayga aniga shaksi ahaan baan ka hadli karaa qalbigayga waxaa kasbaday 6 bilood ee uu shaqeynayay maxamed cabdullaahi farmaajo ummadda soomaaliyeed farxadeeda iyo amnigeeda iyo dhaqaalaheedaba iyo ciidamadeedaba kor ayuu u soo qaaday waa gartay marka sababahaas noocaasa ayaan ku dooran lahaa aniga anoon reer iyo qabiil iyo wixii aan ku dooranayn dalka iyo dadka maatada ee jilicsan wuxuu u qabtay baan ku dooran lahaa aniga waxaad aaminsan tahay haddii farmaajo uu ku guuleysto in wax badan dalka uu ka qabanayo aada iyo aad saasaan aaminsanahay aniga oo wadanka soomaaliyeed sida loo haweystay gumaysiga iyo furfurka iyo dhibaatada iyo kala qoqobka lagu sameeyey inaysan ku dhaceen baan qabaa aniga way homaasan tahay dhegeystayaashu aad ay u fara badan yihiin dhegeystaha kale ee qadka ku jiraan siiya halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magaca iyo deegaanka walaal cabdiwaaxid baa la dhahaa magaalada dhuusamareeb baan joogaa cabdiwaaxid waad mahadsan tahay waxaad moodaa dhegeystayaasha gobolada inay aad u tira badan yihiin oo barnaamijka si toos ugu xiran yihiin waayahay kusoo dhawow barnaamijka walaalow horta dawladda la sheegay annaga nagama qaldan horta laba aragnaba waan gartay
dowladda la sheegayo oo Soomaaliya la sheegataan tahay in xajooyo annaga horta ma aragno waxaa nooma qabato magacahan baan u maqalnaa waayahay hadda qodobkeenu waxa uu yahay doorasho noocee baad doonaysaa in dalka uu ka dhacdo sanadka 2016 doorashada aan doonayno waxaa weeye horta qofka dalka iyo dadka waxu tarkaan doonaynaa maxamed cabdullaahi farmaajo waa soo laabaneynaa taas doorashada ma waxaad doonaysaa in dadku ay wax soo doortaan mise in hanaankii 4.5 ee dowladda federaalka lagu soo dhisay dib loogu laabto annaga waxaan doonaynaa hor dadku inay wax soo doortaan oo qof iyo cod in la soo doorto taasaan doonaynaa marka musharaxee baad dooran leed afartan aan soo bandhignay maxamed cabdullaahi farmaajo ninkaasa annagu la wax qabad lagu aragnaa aragtidanadii annagu maxaad ku dooranaysaa waxaan ku dooranaynaa oo aan magaca ninkaasaan ku dooranaynaa waxtarkiisa iyo waxqabadkiisaan aragnay haddii aan raka laga rabin qofkii la doonaa la iska doortaan leena dalka waxraki aan laga rabinin oo aan la leeyahay maaragtay sidii la dooro laisaga maamulanayo awal badan la iska maamulanayo ilaahaye haddii la iska maamulanayo qof alla qofkii rabaa la iska doorto sideeda ay isaga duleysneed waa maasan tahay alo asalaamu calaykum calaykum salaam cabdullah walaal magacii deegaanka walaalow cismaan xuseen ibraahim baa layidhahdaa cismaan halkee baad igala soo hadlaysaa waxaan kaala soo hadlayaa hiiraan beledweyne gobolka beledweyne waayahay barnaamijka waad la socotaa walaalow si fiican baan la socdaa haddii aad la socoto barnaamijka doorasho noocee baad doonaysaa in dalka ay ka dhacdo sanadka 2016 bismillahi raxmaan raxiim horta walaalow waxaan doonayaa oon jecel lahay doorasho xor ah oo xalaal ah oo shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed ay u madax bannaan yihiin oo la madax bannaanay inay dalka ka dhacdo waan gartay sidee markuu doonaysaa waxaan u doonayaa qof iyo cod in loo siiyo Soomaalida si guud codka looga qaado gobol iyo degmo iyo tuulo iyo miyi sagaal meeshay joogtada codkaas looga qaado si madax ah oo madax bannaan yihiin oo qalbigoodii iyo laabtooda ku fiyowdahay inay wax u doortaan marka afartan musharax ee hadda miiska noo saaran keebaad dooran lahayd adigu walaalow aniga fakradeyda haddaan ka dhiibto afartaas musharax waa afar kolley musharax oo Soomaali ah balse haddaan aniga fakradeyda ka dhiibto waxaan dooran lahaa ninka la yidhaahdo maxamed cabdullaahi farmaajo sababtaad ku dooranaysid sababtaan ku dooranayo walaalow waxay tahay adoo ku jira qol mugdi ah haddii faynuusta lagaa damiyo waad garanaysaa sida uu noqonayaa macnihii qolkaasaad gudihiisa ku jirto mugdi buu noqonayaa haddii lagu shido layrkana wuxuu noqonayaa layr baa kuu baxayo meel walba wixii yaalaad arkaysaa laakiin farmaajo wax 6 bilood ka yar ama 7 bilood wax ka yar xilka hayay sidee wax qabadkiisa aad ku dareentay adiga walaalow maxaa 6 bilood oo uu farmaajo shaqaynayay waxay noo ahayd 10 sano inuu shaqaynayay 6 bilood baa wax qabadkiisii bay si weyn u anfacday oo hadda Soomaaliyeed inteena badan taftiin baa u baxay taftiinkii asaga oo noo baxay markii asaga kursiga ay ka tuurtay laga damiyey ka damisay gaaladii wadanka ku soo duushayna layrkii wuu la damay oo hadda mugdigii aan awal inaan ka soo baxnay aan dareennay baan haddana dib ugu laabanay si ay nala tahay waayahay aada maasantahay assalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullaahi magacaaga walaal aliyow xuseen yeelina liere waayahay xuseen halkeed igala hadlaysaa beledka baydhabo magaalada baydhabo barnaamijka live streamka ay si toos ugala socotaan shafaylaan dhimisanahay aye haddii fikirkaaga aad diibato doorasho noocee baad doonaysaa in dalka ka dhacdo sanadka 2016 alxamdulilahi doodaas faylaye hooba unawala umafadaana nanisiyo doorasho oo onalanti umafadaana doorano hebelow anseeda iyo hebelow walkirin eraana
oo si hore dhiyaasha dalka dhan gudaagii ku dhiyaasiya fadaan oo loo meelaan waayo adiga yaa dooranaysaa أنا وايد دورني لكن إلهي دوري أهرت دورني دكتور هذا ملاجي وشيء أنا أفرت لما هتا أوكي على يدلهم كجران إلا كل ملاجي وقفه لكن وايد دورني لكن دلكوا يدكم أمريكا نجرين لما ورب اللي تاكلوا يسكم نجري ولا قوم دلهم دكتور بيا ودور رفاي yaad isleedahay marka waa la dooran karaa way dooradaan oo reer Baydhabo dadka Baydhabo milkii baadiyo ka nool Soomaaliyeed dad oo danyar arnaadaas degin lankii wala qorri intuu sidii bilood shaqeeyay oo Soomaali walan galo sidoo loo ka ambaaribu ogdo dalkii Soomaaliland jari gobolleedo oo koonfurta walgiisidi oo keeyani duushi amaara arlaaytaan oo qabsatay oo Bereland waliin wada falaane lankii leeyahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lankaas faraana lawiin bogaha liidu sanajara Baydhabo intaas dad kale manbana sidii dawladii taala burburtay lan Soomaali wal falaaso mogal bisha ka fiyaaween meeshaan la kaatar may walaayhi madii Farmaajo wiilal sheenay asgarta xamar roog lankii badamada oo idinta link dayli jari dadkaas dadka ka fanaan galaayeen yoo joogdaan laakiin waa buusameeyo qoray shaqadii liindii askartii mushaaran qori kii oo 77 milyan walaadiisa mushaaran qori askartii noolaatay dadkii oo inta ku qoyeen oo nabada fiiriyaan nabadii fiiriyaan maaragna beesada ku gudayeen iirikii kaayneska toona kasay waayahay dhegeystayaal barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa dhegeystayaasha caalamka iyo kuwa gobolada ku nool waxay si toos ah nogala socdaan aaladda live streamka idaacadda kulmiye dadka ku nool magaalada Muqdisho ee FM-ka 88 megahertz ay nagala socdaan dhageystayaasha fikirkooda way ka soo dhiiban karaan oo waxa ay soo wici karaan taleefanada kala 865666 ama 865777 dhageystayaasha furin qoraaleed ay noo soo diri karaan lambarka gaaban 424 ay ku soo diri karaan waxaad moodaa dhageystayaasha intooda badan ee gobolada hadda nasiib ku yeeshay barnaamijkan ay ka qayb galaan in Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo intooda badan ay codka siinayaan aan markan qadadka ku laabto dhageystaha ku jira allo salaamu calaykum asalaam walaal magacay deegaanka Xasan Ali Maxamed xasan ku soo dhaw barnaamijka halkaad joogtaa tabalado waan gartay umada kuntuwaarey baajo kuntuwaarey barnaamijku waad la socotaa wala socdaa waayahay codkaaga iyaad siin lahayd intaad cod ku gudbin doorasho noocee baad doonaysaan dalka uu ka dhaco sanadka 2017 doorasho waxaan rabnaa xore ahaanan maasuq lahayn inay ka dhacdo dalka oo nin walba uu codkiisa dhiibto magaran waayahay iyaad siin lahayd codkaaga codkayga waxaan siin lahaa meesha dalka iyo ummadda jilicsanto oo Soomaaliyeed oo soddonka sano berbersanaadiis wax u qabanayo maalintan aan siinaya afar sano oo noo soo bandhigtay haddii nin ka mid ah afka siinayna waxaan ku siinaynaa wax qalad uu qabtay doorno shaqadan iyaad siinaysaa marka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaad moodaa dhageystayaashii hore fikirkooda inaad raacday ma raacay fikirka uu ku qabala oo ku dhow waayahay sababta maxay tahay waxaan u arkaynaa niman shaqo soo wada qabtay sharciinta hadda miiska saaran in hadda shaqada ay in hore usoo qabtayba dalka in uu asaga wax tari karaan waa aragnaa waayo waa mahadsan tahay waa kaaga mahadcelinaa waqtiga iyo sidaad barnaamijka ula socotay alo السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. ولا المقاعي ديجاك. وحال إذا محمود. محمود الكبر نقل صهر ليس. نقل بلد وين نشوفه وين. بلد وين؟
waa dhegeystihii labaad ee beledweyne naga soo wacaa haddii aad barnaamijka la socotay doorasho noocee baad doonaysaa in dalka ka dhacdo sanadka 2016 doorasho waxaan doonaynaa qof walba oo Soomaaliya meeshiisa codkiisa looga qaado awow oo qof iyo cod ah qof iyo cod aan doonaynaa annagu waay hayaad dooranaysaan afartan nin oo la sheegayo mid walba waan aragnay waxaan dooranaynaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ninkaasoo Soomaalinimo iyo qabyaalad aan ku aragnay baan dooranaynaa qabyaalad aan lahayn iyo qolo iyo kana ku xiga midna waayo waa kaaga mahadcelinaya fikirkaaga iyo sidaad noola soo xiriirtay dhegeystaha kale ee qadka ku jiraan si halo assalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal magacii deegaanka walaal waxaan joogaa tubada degmada Kismaayo see lagu yahay aad baa loogu fiican yahay waa lagu nabad qabaa waayahay waad ku mahadsantihiin idinkii Jubbalandba haddii aad barnaamijkaad la socotay intaad u gudagelin yaad doorasho noocee baa isleedahay dalku way ka dhici kartaa sanadka 2016 oo adiga aad doonaysaa walaal waxaan doonayaa haddii adaalka ninka liiskay Cabdirashiid Caligaas doorashada waan usoo laabanaynaa doorashada qaabkee u dhacaysaa ma qof iyo cod ah mise in 4.5 lagu soo doorto qof iyo cod baan rabnaa in doorashada loo qaado oo nin walba codkiisa u dhigto sabuuqa ku mido waayo adigu yaa dooranaysaa waxaan dooranaynaa anigu waxaan dooranayaa shaqsi ahaantayda Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo hadda ra'iisul wasaare ka ah oo hadda ka ah dalka ra'iisul wasaare maxaa ku dooratay waxaan ku dooranay shaqadiisaan hadda u bognay oo hariyaha nabadaynta Soomaaliya ka wado waayahay waan kaaga mahadcelinayaa fikirkaaga aad u mahadsan tahay dhegeystaha kale halo assalaamu calaykum calaykum assalaam walaal magacii deegaanka waxaan maxamuud barnaamijku aad la socotaa halkee baad joogtaa baardheere waayahay haddii barnaamijka aad la socotay doorasho noocee baad doonaysaa dalka inay ka dhacdo sanadka 2016 saasaan rajeynaya sidaasaad jeceshahay dad badan baa fikirkan kula qaba waayahay afartan musharax madaxweyne xasan sheekh oo hadda madaxweyne ka dowladda federaalka Cumar Cabdirashiid oo ra'iisul wasaare ka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ra'iisul wasaare ka soo noqday dowladdii ku meel gaarka ahayd oo hogaaminayay Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo isla Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo dowladdii ku meel gaarka madaxweyne ka soo noqday yaa dooran leed adiga anigu shaqaanta Sheekh Shariif oo hadin lahaa Sheekh Shariif aad cod ka siinaysaa maxaad ku dooratay يعني waa nin Soomaaliyeed oo hadda nimankan hadda musharaxiinta kale inuu ka saxaya rajaynaya waayahay waan kaaga mahadcelinayaa fikirkaaga aad u mahadsan tahay dhegeystaha kale halo assalaamu calaykum waraxmatullah walaal magacii deegaanka walaal waxaan talaabayaa mas'uul yiraahdo ku celi deegaanka العدد baad igala hadlaysaa waayahay barnaamijku waad la socotaa fiican doorasho noocee baad doonaysaa dalka inay ka dhacdo waxaan doonayaa doorasho fiican inay ka dhacdo oo shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed anfacayso dadku inay ayagu wax soo doortaan إن dadka على شخصي على qof u doortaan sanduuq codkooda ay sanduuqa ku ridaan waayahay adigu yaad sii lahayd marka codkaaga afartan musharax aniga codkayga waxaan siinayaa Farmaajo ra'iisul wasaarihii hore lix bilood hayay xukuumadda maxamed cabdullaahi Farmaajo aan siinayaa maxaad ku dooratay walaalo waxqabadkiisaan ku doortay kolley qofka asaga isma doorto waa la doortaa waxqabadkiisaana lagu doortaa iyo wixii waa isaga la yimaado inta kaleba waa dooran lahayn hadday la yimaadaan laakiin asaga waxqabadkiisa ayaa ku dooranay waayahay aadan kaaga mahadcelinaa fikirkaaga dhegeystaha kale ee qadka ku jira aan sii halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam walaal magaca iyo deegaanka magacayga nuur keena cumar nuur keena cumar waayahay halkee baad joogtaa magaalada muqdisho waa dhegeystihi ugu horeeyay ee naga soo waca dhegeystayaasha gobolada u badnaayeen waayahay fikirkaaga doorasho noocee baad doonaysaa in dalka ay ka dhacdo waxaan doonayaa
doorasho qof iyo codkiisa oo qofku dadku ay doortaan yaad siileed marka codkaaga 4 musharax 4 musharax horta 4 dalka ay ka soo qabteen أنا معنا محمد عبد الله فرماجة. فرماجة عدينيسا. نعم. هدي أن سكلا كولا كفتمو برجي وها رئيس الوزراء أو حلك وكتة جاي ذاتك دي بتبح دي جاي قيب مكاين. نمبر 1 بانكها وليدا. هو هي أد بعض ما صنت هاي دقيستها كلا قد كوشرة أنسيو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا المقعي ديجانك. walaalo في عين هاي مركواي magaalada marka gobolka Shabeellaha Hoose marka cadii min Usmaan waay ma haasan kaas waaya soo dhawaada reer marka soo dhawaada Ibrahim soo la socoteen waa fiican waa la socno waa dhigeysaneen saakan khadkan ku jirnay waayahay ka raali ahada waqtiga cariiraha dadka aad u badnaa Janisna waa hesheen hadda doorasho nooceeba doonaysaan dalka inay ka dhacdo sanadka 2016 بسم الله الرحمن الرحيم أرنتاس مجا رمنا وحاوي دورشة أو نول بعدكيس الجيهاي أو عد وحشيش عنجرين رمنا نول بعدكيس الجيهاي ثلاثة فوق بس بالله تبيك إغلال إذا الدورة هاي أنا رمنا ياتينا ساعتك أنا مركان معي بتكاين وجن دمنا ودي مواي كين بدنا وانا هيا عدكم ما وين كنا بتو نوع ما كي وحنا قبتي تري بردي سوالي بربرتي بحث وكان أنا عدكاين وعنسينا نار مركز داناي نيكي أو شيخ شريف بري من الحياة كان كنا بنقول محمد عبد الله فرماج نكا كان رمضان نكا عدكاين مسكر هديتي مركز markan ay odayaal badan agteeda fadhiyaa waa ku diisanayaan marka ana codkayna waa xageeyay waayahay aad kugu mahadcelinahay waqtiga aad nasiiseen marka waad ku maasantii sida barnaamijka uga soo qayb gasheen dhageystaha kale ee qadka ku jiraan markan si halo salaam calaykum wa calaykum salaam walaal magacay deegaan afgooyan jooga walaal afgooy degmada afgooy waayahay barnaamijku waad la socotay والله تعالى وهدي الله سعته دورشان وعيبا دونيسا ان دلكا كدع سنتك 2016 ما دورشو waxaan rabnaa qof walba shaqaaka qof walba Soomaali loo tago xaqiiqo lagu hadlo oo asaga intuu ku ridaan rabnaa waayahay marka adiga aad codkaaga siin leed أنا ما أعرفك يا دان حسين وحسينينا تدبر علي عناي يحاول أن قتل علي عناي وحسينينا وفكي تلكي ومد إن شاء الله وترى يا إذا لا تأمرك سيبا ديك سيبا وحين لك هاي نمشي الشيخ شريف كان يجيني ما يلاقي حتى نيكاسة يلاتي أفرت من المدينشات فرماج ما يدول جدا محمد داولجة محمد فرماجة كاسل عدكاga siin leed maxaad ku dooratayba xilligii oo 6 bilood ahaa ra'iisul wasaaraha adigu afgooyad joogtay laga yaabay inaad wax qabadkiisa arkin waxaadna taray nabadgelyada ka shaqeey umar bashaqada inuu aado inuu kalifay inuu dadka guriyada laga hayay dadka beeraha laga hayay ummadda Soomaaliyeed waxay leedahay oo yiri waayahay aad baad u maasantahay waan kaaga mahadcelinaa waqtiga aad siiday dhageystaha kale Janiska inkastoo fariimuhu ay aad u fara badan yihiin oo hal mar aan ugu soo laaban doono dhageystayaasha waxaan dhageystayaashu u sheegayaa fariimaha soo dira in waqtiga noo saamaxeen in qof kasta fariintiisa aan akhrino oo halkaan ay tirada ku bateen laakiin waxaan soo gudbin doonaa natiijada dhageystayaasha fariimaha soo qoray tiradooda inta qof ay u kala codeeyeen dhageystaha kale qadka ku jira halo salaam calaykum alaykum salaam walaal magacay deegaanka awar baan joogaa magaalada muqdisho aad igala hadlaysaa ku soo dhawo barnaamijka ku dhow magacaaga waa أحمد علي haddii aad barnaamijkan la socotay oo dhageysanaysay
doorasho noocee baad doonaysaa in dalka ay ka dhacdo qofkii codkii inay ka dhacdaan rajaynaya daliira saasaan jecel waan gartay afartan musharax keebaad adiga codkaaga siin leed anigu waxaan keenayaa maxamed cabdullaahi farmaajo maxaad ku dooratay wixii bilood oo wasaaraha waa suu wadanka u qabtay baan suu dadka wax u qabtay baan ku doortay waayahay aadan kaaga mahad celinayaa waktigaadna siiseena waad ku mahadsantihiin waktigoona haya dhegaystayaasha aan soo koobo mid iyo laba hadda dhegaystaha kale halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله magacii deegaanka محمد عثمان علي maxamed barnaamijka waad la socotaa halkee baad igala soo hadlaysaa كاران degmada kaaraan ee magaalada muqdisho waa yahay haddii barnaamijka aad la socotay doorasho noocee baad doonaysaa dalka inay ka dhacdo walaalo waxaa doonaa doorasho fiican inay ka dhacdo haddii aan la xidhmo soomaalidu u madax banaanta waan gartay aadaad u mahadsan tahay yaa dooran lahayd waxaan dooran lahaa maxamed cabdullaahi farmaajo maxaad ku dooratay waa 6 bilood oo xamar uu nala joogay waxqabadkiisaan ku doortay sidii ummadda soomaaliyeed ay wax uga qabtay ama wax ugu yeefsiiyey waayahay aadan kaaga mahad celinaa waktigaada siisa markan waxaad ku soo dhawaataan qaar ka mid ah shacabka magaalada muqdisho fikradahooda waxaana ka soo ururiyay wariyaheena axmed maxamed ibraahim bismillahi raxmaani raxiim waxaan rabaa inaad doorasho oo nin iyo codkiis waxaan sii lahay sheekh shariif waxaan ku doortay nin oo dhexdhexaad oo macquul oo la qaada kara waa siyaasadiisina horan u aragnay intaan ka aragnaa ugu filan doorasho xur ah afarta musharax maxay kala yihiin sheekh shariif markuu wadanku oo fiicnaa dhaqaala la helay wadanka kala socay hadda ninkan la doorta abaar oo keenay doorasho xor ah rabaa yaa wadanka horumarka maanta lagu faanayo u soo gaarsiin marxalad doorasho xor ah oo baahan farmaajo waxa ku doorto wax badan ayuu wadanku u qabtay waana laga dareemay markuu hayo xilka inuu magaalada xor noqdo doorasho xor ah ana ahaantii waxa dooraa sheekh xasan magaalada uu nabad noogu dhigay wax saas doorasho xor ah sheekh shariif sababtoo ah ninkaas waa nin fiican oo howlkar wadanka wax u qabanaya doorasho waxaan rabaa one man one phone farmaajo wax qabadkiis aan ku door lahaa mid xor ah farmaajo nin waxa waa oo shacabku dadaalaya oo wax qabad leh oo reference fiican leh waxaan rabaa doorasho oo xor ah dalka inay ka dhacdo waxaan dooran lahay codkayga aan sii lahay madaxweyne aan u istaahilo inuu noqdo farmaajo sababta aan isleeyahay farmaajo inuu madaxweyne u noqdo way istaahishaa waxay tahay farmaajo waa nin muwaadin ah anigana waxaan ku taageersanahay muwaadinnimada ma ahan qabiilnimo laakiin waxaan ku taageersanahay nin Soomaali inuu yahay arrimaha Soomaaliya dhaqaaji kara ee dhameystiri kara Soomaaliya in ay xaga dhigato aniga waxaan jeclahay inaan doorto madaxweynaha dalka mustaqbalka oo noqdo maxamed cabdullaahi farmaajo sababtoo waa nin muwaadin ah oo dalkan iyo dadkan wax u qabanayo oo nin la kasaayo ah waa nin muwaadin aan ku kalsoonahay aan doorashada waan sii lahaa aniga we want farmaajo doorasho fiican ayaan rabnaa waxaan dooran lahaa farmaajo waa nin daacad ah honest man doorasho oo xur ah aniga ra'yi ahaanteeda waxaan dooran lahaa farmaajo waxaan ku dooran lahaa wuxuu ahaa nin wanaagsan oo aan wax qabadkiisa hor aan u aragnay marka waxaan leeyahay nin dalka iyo dadka wax u taraay waa farmaajo waxaan rabaa dalka inay ka dhacdo doorasho xisbi ah oo si dimuqraadiyad xisbiyada loogu soo doorto wallaahi hortii meesha dad madaxa ku jiro oo hore xil u soo qabtay kulli aan ahaan waxaan aan jeclaan lahaa inuu mar labaad soo laabto sheekh shariif oo ah ninkiina baray maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo waa ninkii keenay dadkan sembri sida aad jeceshahay maba la helabo sababtoo ah shariif iyo farmaajo waxaa moodaa laba la isugu tagan inay yihiin wadanka inuu mid rajaar ka noqdo midna wax ka noqdo madaxweyne shariif waxaa ku doortay waa nin halgamaa ah la yaqaano tan iyo wuxuu soo halgamay maxkamadihii ilaa iyo dalka hadda waxaa waaye heerka uu gaarsiiyay waa ogtahay oo ku meel gaarka ka baxshay marka wax qabad badan oo qabtay aan ku taageersanay wax kale ma doorasho waxaan jeclahay macnaha cod oo one by one inoo ka dhaca jeclahay macnaha codkayga haddii aniga coday leedhaho maanta xorriyadda radio waxaanu codayn lahay macnaha kii farmaajo sababtoo macnaha qofka bini'aadamka haddii loo codayna ama haddii oo waxaa waaye la taageeraya waxaa lagu taageeraa kulley wax qabadkiisa ma fahantay
kulley qofka bini'aadanka inuu dhaho walxaan qabana madax walba markii la dooranaya kulley waxay iska dhahdaa waxbaa qabanaa oo macnaha caadadu waxaa waa qofka musharaxa oo macnaha caadooyinkooda waaye laakiin ninka macnaha waxaa qabana waxaa ka wanaagsan macnaha habdhaqanka uu sameeya ama macnaha inta yar oo macnaha jagada uu hayay macnaha waxqabadka oo qabta wallaahi aniga aragtideydii doorasho waxaan jeclahay doorasho xura oo sida tii degmooyinka layska soo dooran jiray oo kale inay dalka ka dhacaan jeclahay aragtideyda aniga aragti ahaan haddii lay weydiin lahaa ama laygala tashto aniga waxaan jeclaan lahaa in sheekh shariif lagu soo celisho sheekh shariif waxaan ku doortay waa nin muwaadina waa nin dadka wax u qabto waa shacabka wax u qabto waa nin dalka wax u qabto waa nin maxayto lagu aamini karo maanta arrimaha Soomaaliya maanta ka jira nin xallin karo waana xallin jiray waana aragnay waxqabadkiisi waxaan jeclaan lahay in asaga lagu soo celisho hadii lagala tashanayo kuwaas waxay ahaayeen dhageystayaal qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho aragtidooda laga soo ururiyay qaybaha dambena barnaamijku waa isla soo gaarnay dhageystayaal markan fariimaha dhageystayaasha ee noo soo diray lambarka gaaban ee 424 ku soo diray waxa studio ku sugan wariyaheena Axmed Cabdullaahi Cusmaan Axmed bal inoo sharax imise qof baa fariin soo diray yees oo kala codeeya cabdiqadar waad mahadsan tahay fariimaha aad bay u tiro badan yihiin saaka dad badan ayaa aaraadooda ka soo dhiibtay iyagoo u kala codeynaya musharaxiinta ay hadda rajada laga qabay inay soo laabtaan sanadkan 2016 bishii September doorashada madaxtinimo ee dalka fariimaha guud cabdiqadar waxa ay gaarayaan horta waa 926 fariin ayaa waxa lagu soo diray nambarka gaaban oo dadku ay kaga ra'yi dhiibanayaan haddii aan markan cabdiqadar oo aan kala saaro dadku siyaabaha ay u kala codeeyeen waqti dheer bay nagu qaadanaysaa haddii aan iraado qof walba magaca uu codeeyo ayaan halkan ka sheegaynaa hase ahaatee si number ayaan u sheegaynaa ama si tiro ah ayagana waan kaga mahad celinaynaa qaabka wacan oo ay aragtidooda ay ugu soo dhiibteen nambarkan gaaban ee 424 marka hore haddii aan ku hormaro tirada ugu badan qofka qaatay ee loo codeeyay waxa uu helay waa 589 qof ayaa waxa ay ku codeeyeen in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo noqdo madaxweynaha 2016 waa 589 qof marka aan ka fiirino 926 fariin ee inoo soo diray 589 kamid ah waxa qaatay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa kaalinta labaad ku soo baxay cabdiqadar isna waxa uu helay tiradan 272 qof oo ku jawaabay anigu waxaan u codeynayaa oo aan diyaar u ahay inuu madaxweyne ka noqdo wadanka Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo la wada yaqaan cabdiqadar haddii aan nambarka xigana aan u gudbo waa madaxweynaha wadanka leelinayo maanta la joogo waa Xasan Sheekh Maxamuud ilaa iyo dhageystayaal 28 qof waxa ay qabaan in Xasan Sheekh Maxamuud oo dib ugu soo laabtay wadanka si oo u hogaamiyo madaxtinimada wadanka nambarka ku xigana waxa ay tahay waa 11 qof 11 qofna waxa ay codeeyeen ra'iisul wasaaraha wadanka Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke dhanka kale cabdiqadar haddii aan eego waxa jiro fariimo xilladoobe iyo kuwa kale aysan dadku soo dhameystirin natiijada laga rabaa aan heerkeedii aan gaarin qaarna way soo kala go'een qaarna waxaad moodaa inaysan dhageystayaashu ayna soo dhameystirin qaarna waa ay iska soo qoreen oo waxay yiraahdeen cidii ku guuleystay waan arkayna laakiin haddii aan inta rasmiga ah ee aan hayno waa 26 qof waxa weeyaan waraaqahooda iyo fariimaha ay noo soo direen qaadashay nooma lahan wax natiijo ah iyo cid ay codeynayaan intaba kuma qorna marka fariimaha guud ee la soo diray waa inta kaalinta koobaad waxa ku soo baxay taleefanada dhageystayaasha soo galo kale iyo qaar kamid ah shacabka aragtidooda marka la isku daro aad ay u tirabadiin ayagana marka lagu daro kaleeto 30 qof oo qadka soo gashay oo dadweynaha ah 19 kamid ah Farmaajo ay siinayaan marka 589 lagu daro 19 waa dareemaysaa tirada cadadka inta la egtahay cabdiqadar waxay ku dhawaanaysaa tiro 600 ah marka sidaas ay dadku u soo kala codeeyeen qaabkaas ay u soo kala codeeyeen kaalmaha koobaadna kaalinta koobaadna kulay waxa galay waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaalinta labaadna waxa galay waa Sheekh Shariif Sheekh Axmed waad mahadsan tahay wariyeena Axmed Cabdullaahi Cusmaan ayuu kaasi dhageystayaal guud ahaan barnaamijkii gaarka aan uga hadlaynay mustaqbalka Soomaaliya inta ay ku soo gabagabeynaya anigu Cabdiqaadir Cabdullaahi idin la socodsiinayay
isku tiirsadoo tashado tawxiid cuskado xumihiya tagee allow tooba wada dhaqa tooba allow tooba wada dhaqa tooba isku tiirsadoo tashado tawxiid cuskado xumihiya tagee allow tooba wada dhaqa tooba allow tooba wada dhaqa tooba allow tooba wada dhaqa tooba 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 tooba